kusoo dhawaada daawadayaal channelkeena Carab 24 qodob xiiso leh ayaan idiin soo gudbin doonaa bal marka hore subscribe dheh share oo la wadaag asxaabta ra'yigaagana hoos inagula wadaag qaybta commentiga mahadsanidin Trump oo saxiixay amar madaxweyne oo lagu mamnuucayo TikTok madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo lagu mamnuucayo shirkadda ay hoos tagto TikTok ee ByteDance oo waayahanba ay ishayeen ayada iyo xukuumadda Washington amarkan madaxweynaha ayaa dhigaya in Mareykanka ay qasab ku tahay inay talaabo adag ka qaadaan milkiilayaasha shirkadda TikTok si loo difaaco ammaanka qaranka Mareykanka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhaqangalka amarkan oo bilaabanaya 45 cisho gudahood ayaa sidoo kale dhigaya in la mamnuucayo shirkad walba oo Mareykanka ka shaqeysato oo iskaashi dhaqaale iyo mid xiriir intaba leh shirkadda lagu magacaabo ByteDance aalada baraha bulshada ee TikTok oo hore loogu eedeeyay in ay basaas u tahay dawladda Shiinaha oo uusan xiriir wanaagsan kala dhaxaynin Mareykanka ayaa beenisay in eedeymahan loo soo jeediyay waxba ka jirin oo aysan jirin wax xiriir ah oo ay la leedahay waxa kale oo ay waxba kama jiraan ku tilmaantay in xogta qaaska ah ee dalka Mareykanka oo TikTok u gudbiyo xukuumadda Beijing maalin ka hor madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sidoo kale saxiixay amar la mid ah kaas oo lagu mamnuucayo shirkadda WeChat oo iyana lagu eedeeyay inay xiriir la leedahay Shiinaha aaladan WeChat ayaa ah mid bulshadu ay u isticmaalaan inay iskugu diraan fariimo mamnuucista lagu soo rogay ama xanibaadda lagu soo rogay aaladda TikTok ayaa ka dambeysay markii madaxweyne Donald Trump oo campaign ku sameystay barta uu ku leeyahay TikTok sidaas oo kale waxa ay diiday shirkadda TikTok in aysan TikTok ogolaanin in campaign lagu sameysto halkan balse madaxweyne Trump waxa uu ku adkaystay in uu ku sameysto liisa doorashada halkan oo ah TikTok balse shirkadda TikTok dadka iska leh waa ay ka dhiga adeegeen waa ayna ka diideen kadib Trump oo ka qaraarsan arrintaasi ayaa tilaabadaasi ku soo rogay shirkadda laga leeyahay dalkaasi Shiinaha ee TikTok oo hoos tagtay shirkadda weyn loo yaqaan ByteDance qodobkaasi xiisaha badan ayaan daawadayaal idin la wadaagaynay hadda sidii ballantu yahay subscribe dhaha share dhaha oo la wadaaga asxaabta mahadsanidin